axmed cabdi kaariye madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa galabtay soo gaaray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya waxaana madaxweynaha Galmudug axmed cabdi kaariye qorqor safarka ku yimid magaalada Gaalkacyo ku weelinayay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ahaa senator cabdi wala qaybdiid xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareeb axmed cabdi kaariye madaxweynaha Galmudug ayaa markuu soo gaaray Gaalkacyo waxa halka ku soo dhaweeyay maamulka degmada kan gobolka saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan axmed cabdi kaariye qorqor oo loo gulbiyay madaxtooyada Galmudug ee Gaalkacyo ayaa la filayaa in saacadaha soo socda kulamo kala duwan oo la qaato odayaasha waxa garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug axmed cabdi kaariye qorqor madaxweynaha Galmudug iyo wafdigan uu hogaaminayo oo qayb ka ah senator cabdi wala qaybdiid ayaa kulamada kala duwan ee bulshada Gaalkacyo la qaadanaya kadib waxa la filayaa in ay u socdaalaan deegaanada koonfureed oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Galmudug ay ka wadaan qorshayaal maleeshiyada nabadgelyada al-shabaab looga saarayo deegaanadaas kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku dhumaaleysanaya deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug Baashi Ali warbaahinta qaranka Gaalkacyo.